waxaa isniintii la soo dhaafay oo ay taariikhdu ku beegneed 20 Diseembar 2021 warbaahinta ka soo muuqday taliyaha ciidanka badda Soomaaliyeed Generaal Cabdixamiid Maxamed Dirir oo ku eedeeyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Injineer Maxamed Xuseen Roble in uu dhisanayo dhul dan guud ah oo ay leeyihiin ciidanka badda Soomaaliyeed. intaas kadib waxaa soo tarayay warar dheeri ah oo muujinaya in arrimaha dhulboobka la xiriira ee ra'iisul wasaare Roble inaysan ku koobnayn dhulka la sheegayo balse ay jiraan dhulal kale oo uu qorsheynayo in uu gacanta ku dhigo inta xilliga kala guurka ah lagu jiro. dukumentigan hoose oo laga soo dusiyay qaybta keedka dukumentiyada arkiifyada dawladda hoose waxa ku cad codsi uu ra'iisul wasaaraha u qortay duqa magaalada Muqdisho Cumar Finish 18 May 2021 oo uu ku dalbanayo in la siiyo saldhigga degmada Waaberi laga wareejiyo dan guud loona wareejiyo isticmaal shakhsi ah si uu ugu noolaado ra'iisul wasaaraha. sida ku cad warqadan idin muuqato gudoomiyaha Cumar Finish wuxuu ku dul qoray in la fuliyo codsiga Injineer Maxamed Xuseen Roble. waaxda dhulbixinta ayaa baadigoob dhul oo qaatay 2 isbuuc markii ay sameysay kadib waxa ay soo jeedisay in dhul ku yaala Jayga oo horey loogu asteeyay in laga dhiso saldhigga degmada Waaberi sida ku cad warqad dawladda hoose ee uu saxiixay gudoomiyihii hore ee gobolka Yuusuf Xuseen Jimcaale 28 November 2016 dib looga noqdo balse taasi sharciyan ay dhici karto oo kaliya ah marka taliyaha booliska uu soo qoro warqad uu dib dhulkaasi ugu soo celinayo gacanta dawladda hoose. waxaa la soo wariyay in ra'iisul wasaare Roble uu kordhiyo cadaadiska uu saarayo taliyaha ciidanka booliska iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir. taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Sareeye Gaas Cabdi Xasan Xijaar isaga oo fulinaya amarka ra'iisul wasaaraha ayuu warqad u qoray duqa magaalada Muqdisho 5 Juun 2021 wuxuu ku yiri mudane gudoomiye waxaan gacanta ku haynaa dhul hore ee inoo siisay dawladda hoose ee Xamar oo loogu talagalay in laga dhiso saldhigga cusub ee booliska degmada Waaberi kaas oo aan in muddo ah gacanta ku haynay oo aynaan isticmaalin. sidaa darteed mudane gudoomiye waxaan rabnaa in aan mar kale dib ugu soo celino gacanta dawladda hoose dhulkaas maadaama baahidii naloo siiyay aan ka maaranay. ugu dambeyn waxaa baaritaanadu cadeynayaan in ay jiraan dhulal kale oo si dadban u galay gacanta ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble kuwaas oo lagu qoray xubno ka tirsan golihiisa wasiirada. si gaar ah ayaa farta loogu goday wasaaradaha waxbarashada iyo warfaafinta. baaristan oo ah mid madax bannaan welina socota waxaan qaybta xigta idinkula wadaagi doonaa warbixino la xiriira musuqmaasuqa baahsan ee socda xilligan kala guurka ah iyo shakhsiyaadka ka tirsan xukuumadda Roble ee faraha kula jira. sidoo kale baaristu waxay soo bandhigaysaa dukumentiyo cad oo bannaanka soo dhigaya boobka qaawan ee jira iyo xubnaha ku lugta leh.